ما شيخ شبلي سلام كدب شيخ وحان أهاي هو يحاسا أو هيستا أفر عرور لكن كما فرح سنة إمانا فرحة دقيقة حاجة عن ودا جوغنو معناها حاجة صرير تأمر والبيئو مقنع يو مدديرنا أي سعوتي عرين كان حدي أن فرين كدل بدا دنبي مية يقوتها شيخو جزاك الله خير. الحمد لله horta ma xadaysan raga awoodooda xad go'an oo sharcigu inta inay sameeyaan weeye leh aniga ma garanayo dumarka kala duwan baahidoodana inda jamaahiri ahli ilmi xaaladan oo kaleeto xaalad xaq fasaq keeni karta maaha waday walaalaha iyadoo afar caruur aan leeyahay dana wada joogeen hooyo ilma dhalaysay odaygeedu wili awood leeyahay bay tilmaamaysaa laakiin waxaan rabaa saddex arrimood inaan qofkan talahaan u taarto waa marka koobaad ee hooyo ilma leh afar caruurna wadata haddii ninkan inta aad kaga calaacalayso bari haddii aad ninkii kala tagtaan ood buriso ama cayriso mid kale aad heli wax dabada ma jirto haddaad hesho aabba afar caruur oosan dhalin inaad la hayn karto uma badna waalidku ilmihiisa si ugu dulqaata qayladooda iyo rabshadooda iyo culayskooda uguma dulqaata ilmo uusan dhalin aabba aan dhalin ugu dulqaadan karin markuu yimaadana adigana cuqdad baad qaadi oo ninkan ilmaha ma dhalino dan kama laho si gaar u dhibsanayaa nooc cuqdada geli hooyada kala ilaalintoodii iyo maxaad saa u leedahay muran iyo qaylaad ku jira tan haddaad dhinaca ka dhibsanayso ta kala lafteeda haddiiba aad hesho khiyaarka xaaladda labaad ugu fiicana mushkilad iyo dhib kama madhna adduunkuna waa iska mashaakil badan yahay saas darteed horta inta aad haysato inaadan helin baaba dhici karta hooyooyin badan oo ama laga dhintay ama raggoodii kala tageen oo ilmo haystaay intaa yarna maba hayaan inta wax heshayna mashaakil baa iyaga iyo raggii ilmaha aan dhalin kala haysta mashaakilkuna dee mid haddaad ka cararto mid ka daran aad u gasho ida lafteeda xal ma aha mid saddexaad waxaan dhihi lahaa waxyaabahan dareenka iyo gogosha cuntooyinka iyo waxyaabaha laba arrimoodba kaalin bay ka qaataan waadna kobcin kartaa baan isleeyahay xaaladaasi dhibkaana aad u yarayso baahida ah ilmihii aabbalaan inay noqdaan iyo reer burbura iyo hadhow waa la ysku xumaada iyo nin kalaa yimid oon ilmihii rabin iyo wax kalaba lama hay iyo mushkilad saad uga badbaado waxaan dhihi lahaa bal isku day odagaaga awooddiisa inaad kobcin karto kobcinta labadaba aan tala ku bixiya marka walow su-aasha li weydiiyey aynan ahayn laakiin ilaalinta qoyska jiritaankiisa gaar ahaan markay caruuri joogto waa wax weyna midna kobcintu hooyaday u noqon oo guriga qaabayntiisa iyada qaabis diyaarinteeda soo dhoweyntiiyo ereyga wanaagsan qayb bay ka qaadataa kicinta dareenka adugu haddaadan isu aaba yeelin odan adigu ka shaqaynin oo baabtii asixrulxalaal la dhihi jiray iyo jiidashadii aadan samaynin halkaa adaa lagaa rabaa inaad wax ka bedasho mid labaadna cuntooyinka la cuno ama khudaar ha noqoto waxyaabo kale ha noqotee maadooyin badanoo jirka caafimaadkiisana dhib u lahayn tayayntana wax badan ka qaataa jira kuwaa laftooda inta aad raadiso iyaga laftooda inaad ku kabto tayadii soo celiso baa ku talin lahaa tawfiiq naag mutu markuu ninkeedu soo galo waa inay teleefanka dhigto waa inay nalalka demiso waa inay isaga la fadhiisato waa inay reerka carruurta mataqaanaa ay seexiso ka shaqayso waa inay mataqaanaa isaga ku mashquushaa